Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada wararka ciyaaraha Bulsho Sports TV qodobada idinkaga heena waxaa ka mid ah Arsenal iyo Chelsea ayaa baadi goobayaan James Maddison Oyarzabal ayaa dalab ka helaya kooxda Manchester City Diego Dalot wuxuu doonayaa inuu sii joogo Milan Napoli ayaa diiradda saaraysa Balhinha intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararka ciyaaraha Bulsho Sports TV haatan isagoo faahfaahsan Arsenal iyo Chelsea ayaa baadi goobayaan James Maddison faahfaahinta warkaas waxaa inoo heesa Muno Cismaan Cali Arsenal iyo Chelsea ayaa indhaha ku hay ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Leicester City James Maddison. Football News ayaa warinaysa in Arsenal ay u dhaqaaqayso saxiixa xiddiga garar England iyadoo tababaraha Mikel Arteta uu raadinaya qadka dhexe ee weerarka. Maddison ayaa heshiis kula jooga kooxda Leicester City 2024 iyadoo ay weelisay Arsenal. Kooxda Chelsea ayaa sidoo kale xiiseynaysa Maddison xagaagan. waxaa la soo jeediyay in Chelsea ay u aragtay Maddison bedelka ugu macquulsan ee Hakim Ziyech. Oyarzabal ayaa dalab ka helaya kooxda Manchester City. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Ibrahim Bibaye. ciyaaraanka kooxda kubadda cagta Real Sociedad ee Mikel Oyarzabal ayaa xilligan dalab ka helaya kooxda kubadda cagta Manchester City ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Ingiriiska. لاعبكاني ayaana aad ugu faraxsan waqtiga kan xaadirka mustaqbalkiisa kooxda Real Sociedad ee horyaalka Liga dalkaasi Isbaanishka 24 jirkani ayaa ku riyaaqay qaab ciyaareedkiisa waqtiga kan xaadirka laakiin warbaahinada qaar ayaa xusaya in kooxda kubadda cagta Manchester City ay doonayso inay dalabka ku xoojiso laacibkaas u dhashay wadankaasi Isbaanishka kaliya waxay sugaysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City inay ciyaaraankaasi gacanta ay ku soo dhigto waxa kaga xig oo kaliya inay markaa midkood ay iibiyaan Raheem Sterling ama Bernardo walabada ciyaaryahan waqtiga kan xaadirka ugu hadalhaynta badan markii loo ogaado dhinaca suuqa ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa ka fiirsan doona hadalhaynta ciyaaraankaasi Oyarzabal waxaana uu doonayaa ciyaaraankaasi kaliya inuu xoojin doono dalabkiisa haddii suurtagal ay noqoto midkood in ay City markaa lumiso Raheem Sterling iyo Bernardo Silva. Laakiin sidoo kale laacibkani ayaa waxa dalabyo muhiim ah uu ka helaya isla qaar kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Liga dalkaasi Isbaanishka waxaana kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad ay kalsooni weyn ku qabtaa in ciyaaraankaasi ay ku heli karaan lacag aad u fara badan haddii suurtagal ay noqoto xil ciyaareedkan laacibkaasi inay lumiso kooxda Real Sociedad xidigooda ay ku faanaan ee Oyarzabal. Dalot wuxuu doonayaa inuu sii joogo Milan. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Ibrahim Bibaye. xidiga Diego Dalot waxa uu doonayaa guud ahaanba inuu ku sii sugnaado kooxda kubadda cagta AC Milan ee ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga. Difaacani kooxda kubadda cagta Manchester United Dalot ayaa gabi ahaanba ku raaxaysanaya waqtigii uu ku qaatay kooxda kubadda cagta Milano waxaana wargeyska Tutto Sport ay shaacinaysaa 22 jirkan oo cadadida xooganeed oo uu ka dhigay garoonka San Siro ee kooxda kubadda cagta AC Milan xil ciyaareedkii 2020-2021 kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa rajeynaysa inay sii haysato xidigani adeegiisa kadib markii laacibkani uu aad ula dhacay qaab ciyaareedka kooxda kubadda cagta Milan. laacibkani ayaa kooxda kubadda cagta Manchester United waxa uu heshiis ahaan kula joogaa tan iyo sanadka 2023 laakiin waxa uu ku qanacsan yahay heshiiskiisa amaahda uu ku qaatay kooxda kubadda cagta AC Milan. xidigani Dalot ayaana markaa xusaya in waqtiga kan xaadirka uusan ku bedelan karin waayihiisa ciyaareed kooxda kubadda cagta Manchester United walow hadda kooxda Milan ay bilaabayso olole ay ku doonayso in ciyaaraankaasi waqti kale amaah ay ku sii haystaan xil ciyaareedka cusub. Napoli ayaa diiradda saaraysa Balhinha. Faahfaahinta warkan waxaa inoo heesa Muno Cismaan Cali. Napoli ayaa waratay ciyaaryahanka qadka dhexe ee Sporting Chio Balhinha inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga sida ay qortay Calcio Mercato. kooxda reer Talyaani ayaa u waratay 25 jirkan inuu yahay bedelka ugu fiican ee Bakayoko kaasoo ku laabtay Chelsea kadib amaah hal ciyaareed uu ku maqnaa. Balhinha wuxuu ciyaaray 32 kulan kooxda Sporting xil ciyaareedkii hore isagoo ka caawiyay inuu ku guuleystaan horyaaladii ugu horeeyay muddo 19 sano kadib. Memphis Depay ayaa ku biiraya Barcelona isbuucan. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Maxamed Ibrahim Bibaye. xidig u dhashay wadankaasi Holland Memphis Depay ayaa guud ahaanba la filayaa in isbuucan gudihiisa uu cag dhigan doono kooxda kubadda cagta Barcelona. rajadii tababaraha kooxda kubadda cagta Barcelona Ronald Koeman ayaa markaa rumoobeysa
ayadoo dhawaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay gacanta ku soo dhigtay labadii xidiga ee kooxda Manchester City Sergio Kun Aguero iyo Eric Garcia saas darteeda waxa ay hadda ay doonaysaa inay si weyn u soo dhaweeyaan xidigania Memphis Depay labadii toddobaadii ugu dambeysay waxa uu warbaahinta qaar u shaacinayay in muhiimadiisu ay tahay oo kaliya inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Barcelona si uu la shaqeeyo tobriisi iyo xulka Holland ee Ronald Koeman laakiin hadda waxa la xusayaa in ciyaaraankaasi Memphis Depay uu aad ugu faraxsan yahay guud ahaanba in la soo gabagabeeyay ku biiristiisa staadiyaha Nou Camp ee kooxda Barcelona. Ronald Koeman ayaa sidoo kale ku tilmaamaya awoodda ku duugan ciyaaryahankani Memphis Depay inay wax weyn markaa ka tagi doonto caafimaadka kooxda kubadda cagta Barcelona. Anigoo ahaan rajadeedu waxaan kalsoon ku qabaa inay iskaashan doonaan asaga iyo Sergio Kun Aguero. Miimaduna waxa ay tahay in toddobaadkan gudihiisa Barcelona isku diyaarinayso sidii quruxda badan ay ugu soo dhaweyn lahaayeen garoonkooda Nou Camp Memphis Depay. kooxaha Man United iyo Man City ayaa baadi goobayaan Koeman. Faafahinta warkan waxay noo haysamonay Ismaan Cali. Koeman ayaa doonaya inuu ka tago Bayern Munich kuna biiro kooxaha England xagaagan. Iska ayaa sheegtay inay weeraryaanka reference uu diiday isku dayga Bayern ee ah inuu furo hadallada qandaraaska cusub isagoo doonaya inuu xagaagan u macsalaameeyo. Koeman ayaa mudnaanta kuwaad siiyay kooxaha hadda lagu xamanayo waxa uu cadeeyay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo dalabyadaasi dhamaadka bishaan. intaas ayaa ku soo gabagabeynayna wararkii ciyaaraha Bulsho Sports TV waa anigoo ah Qamar Maxamed Cumar sidaas iyo nabadgelyo.